asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaada barnaamijka maanta. insha allah waxaynu ku baran doonaa sidaad u sameyn lahayd logo adiga gaar ku ah free laakiin aan waqti badan kaa cunayn kuna sameynaysid 5 daqiiqo gudahood. insha allah maanta waxaynu barnaamijka isticmaali doonaa ma aha software mana aha program kale, waxaynu isticmaali doonaa website-kaas oo kuu fududeynaya sidaad u sameysan lahayd logo professional ah oo free ah, simple ah. haddaba insha allah linkiga waxaan idiin dhigi doonaa descriptionka hoose ayaan idiin dhigi doonaa. linkiga ku dhufta kadib markaad ku dhufataan halkan ayuu ku keenayaa waa website-ka aad ka sameynayso loogadaada. website-ku aad iyo sida loo dhisay aad iyo aad ayay simple u tahay. marka hore waxaad dooranaysaa loogadaada calaamadeedii, waxaad leedahay art symbol ayaad dooranaysaa. halkan waxaa ku jira milyan shaybis kala duwan ayaa ku jira, kii allaala iyo kii ku qanciya ayaad ka dooranaysaa. halkan waxa weeyaan dhankan bidix waxa weeyaan kategoriyada, wax allaala iyo wixii kategoriya halkan ayay ku jiraan. marka waad ka dooranaysaa. anu waxaan doortay technology, kadibna waxaan dooranayaa logo symbol ah, tan ayaan dooranayaa. kadib markaad hal mar ku dhufato hal mar ayaad ku dhufanaysaa loogada. haddii aad rabto inaad xoogaa weynaysiiso calaamada pluska ayaad ku dhufanaysaa. kadib waan soo jiidayaa halkan aan keenayaa si fiican aad u wada aragtaan. haddaba haddii aad rabto inaad loogada inaad ka bedesho kalarka hal mar ayaad ku dhufanaysaa. loogaduna waxay u qaybsan tahay tan laba dhinac, bidix iyo midig. marka imika dhanka bidix ayaan ku dhuftay, kadibna halkan ayaad ku dhufanaysaa kalarka, kadibna halkan ayaad ka bedelaysaa kalar allaala iyo kalarka doonto. anugu xasan ayaan dooranayaa. okay, xaggana waxaan u deenayaa madowgeeda. haddaba waxaan rabaa inaan kusoo daro text. kadib halkan ayaad leedahay art text ayaad ku dhufanaysaa, kadibna waxaad gelinaysaa magaca kambanigaaga ama youtube channelkaaga whatever wuxuu doonaba ha ahaadee. waxaan ku qorayaa igsasho. kadib kanaad soo qaadaysaa, halkan ayaad halka allaala iyo halkii aad rabto ayaad dhigaysaa. waad hoos dhigi kartaa xagga sare dhan allaaliyo dhankaad rabto, laakiin anigu waxaan sameynayaa halkaa ayaan rabaa inaan dhex geliyo magaca. kadib hal mar ayaad ku dhufanaysaa loogada, kadibna halkaas ayaad mouse ku qabanaysaa, hal mar ayaad ku dhufanaysaa, kadibna markuu balaaskaasi ku soo baxo ayaad wareejinaysaa. kor ayaan rabaa inaan u qaado. okay, kana waxoogaa soo yaro siki. haddaba waxaan rabaa inaan iska bedelo font, macnaha qoraalka inaan bedelo ayaan rabaa oo nashqad kale ka dhigo. kadibna halkan ayaad ku dhufanaysaa, kadibna halkan waxaa ku jira fonts fara badan, kii allaaliya kii ku qanciya ka dooro. anu kan sare ayaan qaadanayaa. kadib waxoogaa ayaan kor u jiidayaa si uu qoraalku u waaweynaado. kadib waa kaa halkan kalar allaaliya kalarkaad doonto ayaad ku bedelaysaa. markaad rabto inaad kalarka bedesho hal mar ayaad ku dhufanaysaa, kadibna halkan ayaad dooranaysaa kalar allaala iyo kii ku qanciya ayaad dooranaysaa. waxaan dooranayaa casaan maadaama loogada dhankeeda kale uu yahay casaan. waan dhammaynay muxuu haydeen loogadeennii. haddaba markaad rabto inaad loogadaada save garaysato halkan ayaad ku dhufanaysaa save, kadibna waxaad gelinaysaa email addresskaaga ayaad gelinaysaa. kadib aniga wuu ku jiraa save and continue ayaad ku dhufanaysaa. wax yar ayuu qaadanayaa, kadibna waa lagu soo diraya. haddaba halkanna waxa weeyaan waa muhiim. haddii aad rabto inaad loogadaada mar labaad aad edit ku samayso waa inaad linkigan aad koobiyeysato meelna aad ku save garaysato. haddaba emailka ayaan tegayaa, hal mar ayaan refresh ku sameynayaa. kadibna waad aragtaa ta ugu sarreysa hadda in laysoo diray. double click ayaad ku sameynaysaa, waatan xagga hoose ayaa laysoo dhigay. kadibna download ayaad ku dhufanaysaa. kadib wax yar ayuu qaadanayaa, u dhammaaday. kadibna show all ayaan ku dhufanayaa si aan idiinku tuso meel bannaana. desktopka insha allah ayaan soo dhigayaa. insha allah si aan idiin tuso desktopka ayaan soo dhigayaa. waad soo qaadaysa drag and drop ayaad ku sameynaysaa, desktopka ayaad soo dhigaysaa. kadib tanaan soo xirayaa, double click ayaad ku sameynaysaa. kadib oo laguu soo dhigay folderkaas ayay ku jirtaa. double click haddii aan ku sameeyo halkan waxaad ku aragtaa suuq waliba xoogaan weynayo. double click ayaad siinaysaa, kadibna halkan ayay ku jirtaa loogadaada iyadoo formaatyo kala duwan ah. kadib ka ugu horeeya ayaan ku dhufanaynaa loogadaadii waatan.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay casharkan. haddii uu ku qanciyey fadlan subscribe saar channelkeena, sheer garee, like saar, dhammaan asxaabtaadana la wadaag. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.